dawada kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markii barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaad mid qodobada wararka aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqonay maamulka Hirshabelle iyo waliba kan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu maanta shir uga furmaya magaalada Baydhabo iyadoo ay ka soo qayb galayaan ururka socda beesha caalamka. dhanka kalena gabar Soomaali ayaa qoyskeeda waxa ay ku ogaadeen arrin aysan filanaynin xilli ay iyagu isla joogaan. madaxweyne farmaajona waxa uu kulan la qaatay maanta suldaanka cusub ee dalkaasi Cumaan xilli uu dalkaasi u tagay geeridii ku timid suldaankii hore ee dalkaasi Cumaan oo isaga geeriyooday isbuucii la soo dhaafay. shirkadda DP World waxa ay dacwadii kaga guuleysatay dowladda Djibouti iyadoo dalka Djibouti lagu khasbay inay bixiso dhammaan faa'iidada dekedii Darab iyadoona lagu amray sidoo kale inay ku wareejiso. iyo waliba suurtagal ma tahay in dowladda Itoobiya ay soo xirto madaxweyne Xaaf iyo waliba qorshaha dowladda dhexe federaalka Soomaaliya arrintaas ka wada tahay barnaamijkan sidoo kale ku soo qaadan doona intaan wada ku jirno. aanu ku bilownay daawadayaal faahfaahinta wararkii maalmaha ugu dambeeyay ee soo baxay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ciidamo Itoobiyaan u adeegsanayso madaxweyne si loo soo xiro. wararka ayaana intaas ku daraya in ciidanka Itoobiya saacadii ugu dambeeyay ay dhaqdhaqaaqay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb waxa ayna wararka sheegayaan in afka ay aadiyeen magaalada Gaalkacyo. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu hornaysaa inay hesho maamul ay sax ahaanshihiisa ka gadi karto caalamka oo galmudug lagu soo dhiso. dadka qaar ayaana isweydiinaya suurtagalnimada Axmed Madoobe ay ku soo qaban karaan ciidamada Itoobiyaan maadaama isagaba uu hubeysan yahay. iyadoo dhanka kalena ilo madax banaan ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya iyo Itoobiyaanka Dhuusamareeb jooga u adeegsanayso in la soo qabto Xaaf taasoo laga dhigay in xaalad cakiran ka dhalan karto. dhaqdhaqaaqyada maleeshiyad ku hubeysan Axmed Xaaf ka sameeyaan iyagoo Gaalkacyo ayna ku ballanqaadeen inay difaaci doonaan siyaasiga Xaaf haddii la isku dayo in la soo hujuumo isla markaasna laga soo wado magaaladaasi Gaalkacyo. madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu shir ka furay magaalada Gaalkacyo kaasoo ka dhana kan ka socda magaalada Dhuusamareeb oo gabagabo marayo. waxa uuna ku sheegay inuu ku soo dhisi doono maamul cusub oo loo dhan yahay isla markaasna dhammaanba dadka deegaanadaasi galmudug ay iska dhex arki karaan. waxaana sidoo kale madaxweyne Xaaf uu ku helay magaaladaasi odayaal dhaqameedyo iyagana ka mid noqon kara isbedelkaasi uu waday iyo waliba sidoo kale inuu maamulka barbar dhiso kan Dhuusamareeb ka soconaya. balse dowladda oo qorshahaasi feejignaan xoogan ka muujinaysa ayaa waxa ay sheegtay inaysan taasi suurtagal isla markaasna madaxweyne Xaaf uu diiday dhammaan qorshayaashii loo soo jeediyay taasoo ka dhigan in madaxweyne Xaaf wixii hadda ka dambeeyo ay u adeegsan doonaan qaab xoog ama qaab military. waxa ayna arrintani ka dhalan kartaa culays siyaasadeed iyo waliba mid deegaan haddii madaxweyne Xaaf ay ciidamada Itoobiyaanka ah ku sugan magaaladaasi Dhuusamareeb ay qaab xoog ah ku soo qabtaan. arrintan ayaana sidoo kale waxa ay ka dhalan kartaa in dhismaha maamulkaasi galmudug oo hadda meel gabagaba marayo uu isku bedelo mid fooda ah oo aan loo dhameyn. waxa ayna taasi oo ay noqon karta caqabad kale ay dowladda federaalka wali wada qorshayaal kale oo ku aadan qaabkii madaxweyne Xaaf looga dhaadhicin lahaa arrimahaasi iyo waliba arrimo kale. dhanka kalena shirkadda DP World ee laga leeyahay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dowladda Djibouti uga guuleysatay wareegii labaad oo sharci ah kaasoo ku saabsan dacwadda dekedda Dorola. dowladda Djibouti ayaa shirkadda DP World waxay si khasab ah uga erisay dekedda Dorola 22 bishii Febraayo sanadkii 2018 taasoo keentay in shirkaddu dacwad ay ka gudbiso dowladda Djibouti maxkamadda xalinta khilaafaadka caalamiga oo ku taala magaaladaasi London ee danka Britain ayaa dowladda Djibouti waxay ku amartay in DP World u soo celiso xuquuqda weli faa'iidooyinkii ay ku lahayd. maxkamadda ayaana shaacisay in iyadoo oo la raacayo heshiiskii 2006 ee DP World iyo waliba shirkadda Dorola ee dekeddaasi laga doonayo dowladda Djibouti in magdhow ay ku bixiso muddo ku siman 2 bilood gudahood taasoo ka dhiman in lacago badan ay bixin doonto dowladdaasi Djibouti. khabiir madax bannaan ayaana ku qiyaasay khasaaraha gaaray shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta uu ka badan yahay $1 bilyan waxaana shirkadda ay haatan sugaysaa inay dowladda Djibouti ka jawaabto markaas. shirkadda DP World ayaa maamulka dekeddaasi gacanta ku haysatay sanadkii 2006 hase yeeshee khilaaf soo kala dhex galay dowladda Djibouti shaqada dekeddaasi looga joojiyay shirkadda DP World. DP World oo ah shirkad caalami ah isla markaasna laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxay maamushaa dekedo badan oo caalamka ku yaalo ha ugu badnaadeen kuwa Afrika.
waxayna sidoo kale hadda sidoo maamusha dekado ku yaala Soomaaliya ay ka mid tahay midda ku taal magaalada Boosaaso iyo weliba midda ku taalo dhankaas dekada Berbera. dhanka kalena madaxweynaha dalka Mudane Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Cumaan ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay suldaanka cusub ee dalkaas Suldaan Haziim bin Taymar. ugu horeyntii madaxweynaha ayaa suldaanka cusub iyo weliba shacabka wadanka Cumaan uga tacsiiyay geeridii Suldaan Qaboos bin Saciid oo sanado maamulayay dalkaasi. sidoo kale madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka looga bari inuu ka waraabiyo jannadii Firdowso. labada mas'uul ayaa sidoo kale soo hadalka qaaday arrimo ku aadan xiriirka labada dal iyo weliba sidii loo xoojin lahaa. madaxweynaha Soomaaliya ayaana qayb ka ah madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa tacsiida Suldaan Qaboos oo ku tagay wadankaasi. dalka Cumaan ayaa weli waxa uu ku jiro maalmo baroor diiq ah oo loogu dhawaaqay dalkaasi kadib geeridii suldaankaasi oo muddo ka badan 50 sanadood maamulayay. waxa uuna ahaa 79 sano jir. waxaana magaalooyinka dalka Cumaan guud ahaanba laga dareemayaa geerida suldaankaasi iyadoona inta badan dalkaasi la galay maalmo baroor diiq ah oo loogu baroor diiqayo geeridii ku timid suldaankaasi. dhanka kalena gabar Soomaaliyeed ayaa waxay arrin la yaab leh qoyskeeda ku ogaadeen kadib markii aan laga filayn. hadaladaasi waxaa tiri Sumaye hooyadeed kadib markii ay ogaatay in gabadheedu aysan hilibka cunin balse khudaarta oo kaliya ay cunto. maxaa tiri hilibka waan ka caaganayaa. maxaa xiga markaasi ma waxaad tuuri rabtaa xijaabka iyo hooyadeed ku tiraahday. waxaan jeclaan lahaa inaan hooyaday muuqaal ka duubo markaasi jirkeeda oo dhan wuu isbedelay waxayna ii aragtay sidii inaan qof dilay oo kale ayay tiri Sumaye oo 18 jir ah kana soo jeeda galbeedka London. anigana waxaan dhahay hooyo aniga qof bini aadam ah ma dilin waxa sidaas oo kale u weyn ma sameynin sida dad badan oo reer Britain ay maanta yihiin. Sumaye waxay isku tahay dhowr waxyaabood haweeney muslimada xijaab xiran Soomaali ah iyo tan ugu dambeysay oo inay tahay qof hilibka ka caagan oo qudaarta kaliya cuna. qiyaastii 540,000 oo dadka hilibka ka caagana ayaa ku nool gudaha dalka Britain sida lagu sheegay daraasad laga sameeyay sanadkii 2016. tiradaasi waxay 150,000 ka sareysaa halkii ay mareysay sanadkii 2006 taas oo ka dhigan in dadka noocaas ay sii kordhayaan. diinta Islaamka in hilibka xoolaha la cuno waa xalaal taasina macnaheedu waa in dadka muslimiinta ay hilibka cunaan iyagoona diintooda raacaya. dad muslimiinta ah qaarkoodna waxay aaminsan yihiin in haddii la isku mamnuuco wax diinta laga xalaaleeyay ay tahay wax talaabo xaaraan ah. balse gabadhan ayaa waxa ay ka yaabsatay familkeeda kadib markii ay tiraahday wax ku aadan hilibba ma cuno. waxay arrintani inta badan ay ku noqotaa mid la yaab leh ay ku noqotaa waalidiinta Soomaaliyeed ee dalkan qurbaha yimid iyagoo ah dad waaweyn kuwaasoo ku arki jirin Soomaaliya markii ay joogeen dad hilibka ka caagan. waxaana inta badan dadka Soomaalidu ah dad ku dhaqan xoolana leh ay yihiin dad cuna hilibka balse marka la yimaado qurbaha ayaa waxyaabo badan oo hore aan loogu arki jirin gudaha Soomaaliya lagu arkay. ugu dambeynna shir u dhaxeeya madaxda maamul koonfur galbeed iyo weliba kan Hirshabelle ayaa maanta waxa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Baydhabo ee gobolka iyadoo shirkan ay kasoo qaabisay wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo weliba midowga Yurub ayaa looga hadli doonaa iskaashiga mashruuc ballaaran oo maalgelinaysa midowga Yurub oo ah kobcinta iyo weliba horumarinta dhaqaalaha labada dowlad goboleedyo. madaxweyne koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen iyo weliba madaxweyne Waare ayaa si wadajir ah u furi doona shirkan. sidoo kale la shafiiro dalalka midowga Yurub ka qaybgali doona shirkan iyagoona ammaanka si aad loo adkeeyay. shirkan oo socon doona 2 cisho ayaana lagu soo bandhigi doonaa kaabayaasha dhaqaale ay leeyihiin labadaasi maamul gaar ahaan dhanka wax soo saarka ee beeraha. maamulka Hirshabelle iyo weliba kan koonfur galbeed ayaa ah maamul aan lahayn ilo dhaqaale oo gaar ah ay ku tiirsan yihiin iyadoo isha dhaqaale ay weyn ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo bishii ay ka helaan lacag gaaraysa ilaa 150,000 dollar taasi oo ah mid aan ku filnayn marka la eego maamulada iyo weliba baaxadooda loogana baahan yahay sidii ay isku ballaarin lahaayeen isla markaasna loo xoreyn lahaa deegaano badan oo ururka al-shabaab gacanta ugu jiro. sidoo kalena ay noqon lahaayeen maamul isku filan oo soo saarta dhaqaalahooda isla markaasna leh wax soo saar iyo weliba dhaqaale aan ahayn
kan iyo dowladda ka helaan oo ah un kaliya $150,000 taasi oo ah marka la eego baaxadda isticmaalka iyo weliba qarashaadka baxayo iyo weliba maamul goboleed in uu ku filnaado $150,000 ay noqonayso mid aan macquul ahayn isla markaasna looga baahan yahay labadan maamul in muddo kooban gudaheed ay keensadaan qorshayaal dhow si ay u noqdaan maamul goboleedyo isku filan isla markaasna soo saarto isla markaasna noqdo kuwa wax soo saara. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna qaybta koowaad tan iyo qaybta labaad nabadgelyo.